sanad guuradii lixaad ee ururka Arare maanta waxa lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaana munaasabada dadkii ka soo qayb galay eedeyn ay u jeediyeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxa ay nooga soo waramay wariyaheena Maxamed Aadan Sadaal 16 sano guuradii ka soo wareegtay markii ururkii Arare ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxa magaalada Baydhabo maalinnimadii shalay ka dhacay munaasabad lagu weyneynayay ururka Arare 6 bishii 1999 ay la wareegeen gobolada Koonfureed sida Baay iyo Bokool munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay ururka haweenka ururka dhalinyarada ururka bulshada rayidka halgamiyaashii ururkii Arare iyo marti sharaf kale oo ayagu lagu azuumay munaasabada ugu horeyntii ayaa waxa goobta ka hadlay guddoomiyihii hore ee gobolka Bokool kana midka ahaa halgamiyaashii ururkii Arare Yuusuf Maxamed Guura oo loo yaqaano Guurow oo khudbad dhinacyo fara badan taabanaysa ka soo jeediyay maalintii waxay ugu batay ولجل تاريخ كره أو ميلون كقرن أنا رح بدي أفرقوا ركوبين سيان بدنا يسيزن لوكين باي بقول شبيلا هوسة يجوبل النحية يركض دجالنتو لما ستوس إكالنتو جديد لما نيجو أنتي وقت مراس يا كستو يرعرض والخلاف إيو ميلو ولا أرض كوكوي يوغيرو لما أسقوبر مديار بذاتي هايس بيليوروكيون يا أرد كستو يا أرد فشلالة يا أرد كدين أغايتين أرى ولي من آسي ولي هايكم ضدان أغيان تسدين حرتي يوردني تسدين أرى مغاري سيسكو ويرو هايو بسين بسلوكين dad meel ka duulayo wadanka Injiil mahay wali hayana laweyn rasiisan bi'arbi urku wala isku reebowka meeluhu deegaanshi iyo maamulada dhinaca kale waxa isaguna goobta ka hadlay Maxamed Aadan Qalanle waa gudoomiyihii hore ee gobolka Baay horan uu ahaa afayeenkii ururkii Arare waxa uu si aad uga dheeraaday wax qabadkii intii uu shaqaynayay ururka Arare أنا ديار جرو نمولي خير ولي شري وحنا سساريني خيرها تجوا ضغط ونجوا خير ولي تسكين اللي خذك بادي واجرة ولا صورة أنت اللي كنا وديار جروهن اتكسروا ودليل مرفلا وهكذا حتى ما يروح عندنا ما رحت اللحظة تقول إن ندفع عنه بسرعة سريعة لهذا الدول وحلو دفاعي كرانك ونفسنا نقورنو هذا نقورن ونقول فنانين في عرارة ما هم تقوى ولا فيلا يدوك أسمك جري أسمك فيلا هاي سلوين أسمك فيلا هاي تور مكو كويا ها كفيلا هاي تور مكو كويا سوى النوم ولا النوم حتى ما يوصلانه نمان قبلوا يجيسيال كهاي أو قرية قالين فوق أميرو توني ما يفضلني لكن leadership فضايا leadership إذا ما تقعوا إذا ما نفسه سكان بالمسألة ما ينبغي كيف تقولوا لي قال سيكابور يعني نرجع هذا ugu dambeyntii ayaa waxa munaasabadaasi tixgabi ka tiriyay Abwaan Ishaaq Abgaalow oo isagu ku dheeraaday wax qabadkii iyo waliba sida markaasi ay u daala dhacayeen ururkii Arare maayna badan goorday isticmaal ururka Arare hamarday afayeen min iyo malaha Arare ومن ينابه الموجود عند الجود أبويهنا أشرافنا عملنا وفشلنا ويعيني ذكي أنا فرق هذا إلهي بس أنت ما جنابه أمي أنا ملعبنا أسطوري يتيجي أنت ما أسطوري إثيوبي أنت ما أسطوري إنفتي أنت ما أسطوري عاصمتني أنت ما تفرق هذا أفويني قال إكسكونترول إكسكونترول إلى أربعة حكم أنت لا نقول إلى فكرة أصل أنت لا نقول أصل الجزيرة أفويها كان نقول إلى أن أقول لي أفرقوا برا يتيجوا نوري أنا لا كسرت أعتبر ذاك
dhinaca kale boqolaal ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa aad u araysan waxa ay ku banaan baxeen bartamaha magaalada Baydhabo halkaa oo ay ku gubeen sawirkii ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo ay ku eedeeyeen in gebi ahaanba aan taageersanayn maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya lixda gobol Maxamed Aadan Socdaal TV-ga caalamiga ee Kalsan Baydhabo Jinaay